soo joogtaan xarsan toob saaxiibkay muddo waa maqnaa xanuunkana waa la ildarnaa ilaa haddana waa la ildaranahay fadlan waxa ka codsanaa marka ugu horeyso adiga iyo afrikaanta aawadid inay iga foqdaan sixirkan kaliya maaha dadka caadiga ah iyo nooca loo sixir xitaa maaha nooca hore u arkin oo hore aan u maqal oo weli la sheegin xitaa waa dadka dhanna waxay leeyihiin inuu asaga ma ahan wixii la sheegay wax la shuuda karoon xasan toob magaalada muqdisho sababta uga tagtay dadka dhanna waxa waa ogyihiin ana waa ogahay faanti waxaa rabaa xaaladaas inaan kula socodsiiyo iyo haddii aad tahay qof caadi haddii aad tahay qof aan caadi ahayn inaan kula socodsiiyo xaaladeeda way ka sii daraysaa marba marka ka dambeyso dadka kaadamiinka ah iyo qof walba ku yaqaan waa la hadlayaa inaa arrintan xaaladeeda soo bandhigana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waan salaam saxaabtayda qaaliga kulantu wacan oo xiiso la soo dhawaada meel walba joogtiinba waa walaashin saam cabdi oo idin le mar kale iyo muuqaal cusub ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. welcome asxaabtayda qaaliga waa anigoo idin le oo soo laabtay labada maalin muuqaal soo duubin xoogaa yar waa iska yar hawl adduunyo ma dhamaato adun baa dhamaanaysa ma ogi hawl adduunyo ma dhamaato iyadoo saan taagan baa laga tagayaa alxamdulillahi rabbil caalamiin ma hadda koowaad waxa iska la soo horay barateenba allah subxaanahu wa ta'ala tan labaadna waxa iska la asxaabtayda qaaliga aan hayaan dheer isla soo hayaanay welina aan isla joogno xoogaa codka waxaad moodaa dhuunta xoogaa waxaad moodaa inay xabiibi waxaas igaga jiraan qadhadii laba maalin ka hor soo martay alxamdu shukur sheedaan baan qaldhan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahadle waa in salaamaya asxaabtayda qaaliga qof walba waxaan ku salaamayaa waxay u tahay habeen hadday kuu tahay maalin hadday kuu tahay casr hadday kuu tahay inta waxaan ku leeyahay ha kuu wacnaadin sida anigu u nabad qabo oo iigu qurux badan tahay adina ha kuugu qurux badnaata maasha allah tabaaraka allah soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ba asxaabtayda qaaliga meeshaad igala socotaa waa Sahaam Cabdi Janaal subscribe noo saar like noo saar commentiga wixii ra'yigaaga ku dhiibo isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh asxaabtayda qaaliga waxaan rajaynayaa sida maalinteeda u qurux badan tahay taadan inay u qurux badan tahay insha Allah ta'ala asxaabtayda qaaliga sad ku soo aragteen videoga hordhiciisa aad ku soo aragteen ma title-ka ka soo aragteenbo arrimaha kan maxaan ku dhahay ayaantan la boonbooninayo balaayada laga dhigdhigaayo oo barabna caawin asdul taagno aan ka hadalno aniga wiilkan aqoon uma lahayn mana garanayo hadda iigu horeyso oo waa aan arkay wax aqoonuna maana u lahayn laakiin cabashadiisa ay soo gaartay waa la ii soo diray cabashadiisa ay soo gaartay horta waxaad u maleysaa in maaragtay wax aan macno lahayn oo daciif ah oo aad u liito in la buunbuurinayo xoog loo yeelayo oo balaayo laga dhigayo u maleysaa waana maxaan ku dhahay tabeec iyo xiiso iyo awood loo yeelayo shayaadiinta daciif waaye aad bay daciif u yihiin aad bayna u liitaan maahan ina adinka dadka islaamka ah inay buunbuuniyaan ay xoog u yeelaan ay gadaan ay hawada geeyaan ma aha waa laga qurux badan waan laga fiicaya dambi waaye waxaan ku dhahay wax fiican ma ahan waxaan ku shaydaanka daciif waaye a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim marka tiraahdo asaga dhanba waa suuxaya waa daciif waa wax liito waa la sixrayay waa laga dhacayay waa la dilay arrinta Nairobi qaatir billahi uga taana way fujuk xamray ka bilaabtay miya hadane xamray ka bilaabtay sixirku wuu jiraa xasadkuna wuu jiraa laakiin ma ahan ummadda dhan inay wada sixrantahay ma ahan ummadda dhan inay xasad kugu wada tahay ma ahan laakiin dabcan qofka bini aadamka xasad uu yeelan karaa wuuna la dhibaateyn karaa waa wax dhici karo laakiin maxaa la rabaa inay markay kugu dhacdo maxaa la rabaa social media inta soo sada hebel baa sixrayay hebel baa in adiga daciif iska dhigto qof xun oo shayaadiin caabusan ama shaydaan u adeegayana inaad buunbuuniso kor u qaado adiguna inaad daciif iska dhigto maahan adoo qof bini aadan oo bashar bini aadan oo ilaahay qaymo iyo qadarin uu siiyay aad tahay oo ilaahay ku qiimeeyay oo ilaahay maxaan ku dhahay oo sharafteena iyo qiimeena oo kor u qaado uu sheegay shaydaan xun oo daciif inaad buunbuuniso ma ahan haddaad iska shakido afar wadaad u yeero quraan jag isku sii adkaarta akhriso weysada ku bax aad kursi akhri shanta salaad gadaashood aad kursi akhri weysa la'aan ha soconin maxaa la saaxiib quraanka adkaarta akhriso tasbiixda akhriso waxaas oo dhan niyadaada way ka tagayaan laakiin adoo aan salaad lahayn adoo aan weysa lahayn
adoo maxaan ku artay ilaahay cabsidiisa aysan kugu jirin inaad tiraahdo waa lay sixra dee sixirba waxaa kugu filanba waxaad adigu samaynayso sooma naftaada inay daciif noqoto oo aad wax sixran noqoto waxaaba kugu filan dunuubta naftaada saarana kugu filanbo marka waxaaba laga yaabaabo makooso naftaada ay keentay iyo dhibta naftaada uu keentay oo naftaada ay keensatay inaad dadka ku haysatidaaba laga yaabaabo ya haddii aad ilaahay ku xirnayn oo goor salaad kugu dambaysa aadan aqoon oo goor maxaan ku dhahay weyse kugu dambaysa aadan aqoon oo goor quraan aad akhriso kugu dambaysa aadan aqoon oo goor tasbiix kugu dambaysa aadan aqoon dee maxaa kuu dhowran inay shayaadiinta iyo wax aan macno lahayn bay kula darsaayeen ma diidaysaa ya ma diidaysaa qofka ilaahay ku xiran oo 5 salaadood joogtay lama sixir karo lamana sixiro haddii la sixrana wax uu ka dhimaayo ma lahan wax uu ka dhimaayo ma lahan tan kaleeto annaga markii aabad waxaas aadam aad ka baqdo ama ay isaga shakiso ilaahay meel la carro ku siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala cudur kasta uu keena daawadiisu keena waayo daawada soo raadsan social media maxaa yaalo ya social media maxaa yaalo oo kasoo doonaysa daawada meesha talma aadid ya familkaaga u tag afar wadaad soo qabso quraan jag isku sii adigu isku akhri laftirkaaga isku akhri 5 salaad gadaashooda haddaad isku akhrido quraanka wax ku qabanaayo ma lahan ilaahayna aad tala saarto quraankana adoo yaqiinsan aad akhrisato wax ku qabanaayo ma lahan laakiin hadda isla buusta ka warna aad tiraahdo waan sixranahay waan dilanahay waan ka dhacay أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سحر وحويها ملهن يوحو قال منا ملهن وحو يهي يوحو قال منا ملهن كلامك إلهي با كوين كلامك إلهي با كأذك إلهي تلسار شري ساكفلا وحو قال يوحو يهانا ملهن ضدك وحاس بونبورين عيانا وحانو أركا ضد شيادين تلا شقين عيا ضد شيادين تلا شقين عيا أو حب ويلا يا شيادين دو وحودا يانو أركا ضدك وحاس بونبورين عيا ورويل يو إلهي الله إلهي الله قفك أتكشك سنتهاي أو أتكشك سنتهاي هعاين هنا عذاب هنا فضيحة سنينة أنت إلهي كديسد أو رب سبحانه وتعالى أسأل كديسد أضو أرئيس ضبيب قرآن سارة آد السحابة وان كعاي كاقا دبك يوجري مشينتو إس دي مساء مقلي وابو ذا مركا واسو فيرين إنو كاقا دياري هاي إنك لما شاء الله ديار مقضبو مركا waxa iga xanaajinaayo oo anoo xanaaqsan u soo galaya waxyaabaha daciifka ah oo xunxunka oo wax macna aan lahayn oo la buunbuuninaayo wallahi billah waxaasay wax macna lama ahan ilaahay ka cabsada waxaan aad buunbuuninaysan oo balaayo nooga dhigaysan oo dadka aad cabsida gelinaysan ka daaya qof waxaad arkaysaa xanuunsan xoogaa yar oo la dhahayo waa sixiran yahay ilbaa hayso hebelow wahay war ishi aad sheegayso iyo waxa aad sheegayso dhan ilaahay subxaanahu wa ta'ala tilaabo kasta aad qaadayso adkaar la akhristo soo dajiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala tilaabo kasta aad qaadayso duca la akhristo soo dajiyo oo wax ku heleeli kara aan la arag subaxdii gurigaaga markaad ka baxayso aad adeeg dooranayso ama aad meel gaarayso waysada qaado inaad waysa qaadato bismillaahi tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah hay maxaa ku karaay wax ku karaay iyo wax ku soo dhawaanay male salaad kasta aad tukato gadaasheeda aad kursi akhriso ya aad kursi akhriso anigu haddii inaan tukan oo haddii maxaan ku dhahay inaan adkaar akhrisan haddii inaan weyse qaadan haddii inaan quraan akhrisan dee wax ku weynaya maba lahan wax walba iyo shaydaan kasta iyo jinni kasta meel saqiran buu kaa helayaa wuuna kula degan yahay wuuna kugu dhex noolyahay ya wuuna kula degan yahay wuuna kugu dhex noolyahay daciifna waad u tahay marba haddaadan ilaahay ku xirnayn qofka ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo qofka waxa u dhaxeeyo xariga u dhaxeeyo oo asaga ilaahay isku yaqiinsan yihiin waa salaada hadda salaada ka tato Soomaa eber baatay waxa taaman marka aniga waxaan leeyahay dadkaasayto shahaadiinta buunbuuninaayo iyo waxaasayto intaasaan ka leeyahay wax bal ila dhageysa fartum balbalaarka waxay tiri فرتم الولارك أيضا واسكو دحيا عدا مركي ورشيغي حماسدaysan waa isku dhaxaya cada habargidri waa abgaal waa intu ka dhac wiilkan yarka ruuxaasayto dhan waa iskala soo tagay waxaasayto la iskala horto ninkan Allah caafiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ha siiyaan leenay intii dib dareemayso dibta Allah ka dulqaado
انت وحكو سميسنا الله سو هنوشو ضد حن ويجران ضد حسدهنا ويجران لكن بدل السوشيال ميديا انت اما عندي لا ولا سحر ولا قدعي ولا يرلي ده لها oo anigu waxaan aaminsanahay in ilaahay xaqiisa loo cararaan aaminsanahay ilaahay xaqiisa loo cararo hada quraan saaro waxaas laga hortago sheedaanka iyo shayaadiinta daciifka iyo waxaas xunna xayisiinta loo sameeyay hal daayo oo hal iska daayo sixir wax la dhahaa ma jiraan haduu jirana wax aan macna lahayn way kalaamka ilaahay baa ka adeeg kalaamka ilaahay hal isku akhriyo ilaahay xaqiisa loo jeesto adkaarta hal akhristo Soomaali Maxamed waxa idin leeyahay mac salaamo bye bye